جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا. هموم المسلمين هموم المسلمين هموم المسلمين. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته، وأن يهبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل، ويرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين، إنه سميع مجيب الدعاء. walaalayaal, dayaxa habeenka 15 ma aragteen? maxaa ka qurux badan, maxaa ka iftiin weyn? nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ka qurux badan oo ka iftiin weyn. waxa uu yidhi saxaabi jaliila jaabir ibnu samura, waxa uu yidhi habeen baan soo baxay dayaxu uu 15 u yahay. waxaan arkay dayaxa iyo quruxdiis. nebi moxamed baan arkay calayhi salaatu wasalaam. wallaahi waxaan arkay nebi moxamed oo dayaxa ka qurux badan sala allahu calayhi wasalam. dayaxu samadu iftiimiyaa, laakiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam samada iyo dhulkaba wuu iftiimiyaa. dayaxu wuu dhacaa, nebi moxamed ma dhaco sala allahu calayhi wasalam. dayaxu nuurkiisu wuu naaqusmaa, laakiin nebi moxamed nuurkiisu ma naaqusmo. dayaxu wuu madoobaadaa, laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ma madoobaado. innahu diyaa'u laamic wannuuru saatic. waa nuurka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay inoo soo diray. galadu waxay doonayaan nuurkaas sidaa u iftiimaya, barakadaa iyo khayrkaa weyn in ay demiyaan bay rabaan. yuriiduuna liyuطfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun. ina yarbaa intuu xaggaa istaagay ayuu leeyahay ceedceeddaas ayaan afuufi oon sidaa ku demin. miyuu demin karaa? nebi moxamed ayaa demin karaya. nuurkaa alla uu soo diray ayaa baktin karaya sala allahu calayhi wasalam. waxay wax ka sheegeen fii shakhsiyatihi nebiga calayhi salaatu wasalaam, shakhsiyaddiis, sharaftiisa, cirdigiisa, karaamadiisa calayhi salaatu wasalaam. waxay wax ka sheegeen diintiisa nebiga, risaaladuu alla u soo dhiibay, dacwadiis ayay wax ka sheegeen. fidaaka abii wa ummii anta yaa rasuula allah. hooye iyo aab baan kugu furanaynaa rasuulkii ilaahayow. laakiin ilaahay baa nebigiisa u sheegaya. ilaahay waxa uu nebigiisa ku leeyahay, wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiyan wanasiiraa. nebi allow adigu uma horaysid, ambiyaadii kaa horaysay, rasushii kaa horaysay, gebi cadow bay lahaayeen. nebi walba cadow buu leeyahay oo mujrimiinta ka mida. ilaahay baana kuu kaalmay nebi allow. ayuha alikhwatu alkiraam, difaacan aan difaacayno rasuulkeena muxameda sala allahu calayhi wasalam, nusro aan u nusraynano xabiibkeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam iyo diinkiisa. culimmada masaajidkan barakaysan waxay qarireen, go-aan ku gaadheen inaan diraasayno oon barano nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam, inaan akhlaaqdiisii, taariikhdiisii, noloshiisii aan barano nebiga calayhi salaatu wasalaam. sidaa awgeed waxaan ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala aan baryaynaa
inuu culummadeena khaasatan culummada masaajidkeenna inuu ilaahay quluubtooda iyo qubuurtoodaba u nuuro aamiin dhah culummada masaajidka lajnada masaajidka shabaabka masjidka iyo dhammaantiin ayuha alikhwatu alkiraam ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay وربك يخلق ما يشاء ويختار ربك النبي الله يخلق ما يشاء وحضن ربك أبورا ويختار كدبنا ودورتا خلقك أبوري أي إلهي قار كدح دورتا إلهي وطيب ولا يقبل إلا طيبا وحو ناكسن إلهي دورتا إلهي ربي سبحانه وتعالى سموين كان أيو أبوري كربك الدورة إلهي سبحانه وتعالى قلك أيو إلهي أبوري البيت الحرام أيو كالدورة مكة شنويك ربي أبوري وحو كالدورة الفردوس الأعلى مالمها أيو إلهي أبوري يوم عرفة أيو إلهي كالدورة بلها أيو إلهي أبوري بشر رمضان بكرح دورت إلهي هبيندا أيو إلهي رمضان أيو إلهي بلها كرح دورت رمضان وحو كسي دح دورتي العشر الأواخر طبعا كالدنب ربي وحو كسي دح دورتي هبينك الليلة هذو ليلة القدر إلهي ملائكتي سو أبوري سبحانه وتعالى وحو كدورتي جبريل إيا ميكائيل إيا إسرافيل إلهي بشر كأيو أبور خلقا إن النبي آدم وحو إلهي كدح دورتي الأنبياء أنبياء دا أيو إلهي كدح دورت تردودنا بقول إيا اللبي إيا أفرتم كن أي هاي أنبياء دا إلهي وحو كسي دح دورتي الرسول شيسا سدح بقول إيا سدح إيا تبر رسول أي هاي رسوشنا الله وحو كسي دح دورتي أولو العزم من الرسل هو ليله نبي نوح نبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولو العزم من الرسل وحو كسي دح دورتي نبي إبراهيم إيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم جنسيا إن النبي آدم أيا الله رب بني آدم أيا الله وحو كدح دورتي جنسيا أولاد النبي إسماعيل أيو كدح دورت أولاد النبي إسماعيلنا بني كنانة أيا الله كدح دورت بني كناننا قريش بو إلهي كسي دح دورت قريشنا ريب بني هاشم أيو الله كسي دحضورت ريب بني هاشمنا محمد باكر شيء صلى الله عليه وسلم نبي محمد حقا سؤال الله دورت نبي محمد وحو أها خير أهل الأرض نصبا على الإطلاق dadka arlada ku sugan ka ugu nasabka fiican buu ah ugu tafiirta fiican ayuha dhinaca hooyo iyo dhinaca aababa nasabkiisu nabiga waxa uu ku xiriirayay Ismaaciil nabi Ismaaciilna nabi Ibraahim anbiyaadaas ay ku xiriirayay hadan dib u yara eegno taariikhdaas in yar an gogasha u sii xaadano duruusteena soo socota nabi Ibraahim alayhi salatu wassalaam waxa uu deganaa bilaad al-Iraq dhulka Iraq ayuu deganaa nabi Ibraahim meel la yiraahdo ar ayuu deganaa uu ka hijrooday nabi Ibraahim ilaa Filistiin ayuu hijrooday فلسطين أيا وحا وكدكتي قاعدتي ماشي ودعوده كودي وكفافيني أيو كدكتي النبي إبراهيم كدبنا وحو تجي مصر سجى إيها وين دي سارة مصرنا فرعون كي وقت قال شري
ayaa doonay haweenaydiisa saara inuu kala hadho ilaahay baana uga badbaadiyey waxa uu siiyey fircawn haajir buu siiyey bacd alculamaa waxa ay leeyihiin haajir waa inantii fircawnkii wakhtigaas markuu arkay saara karaamada ay leedahay iyo alla siduu u difaacay ayaa waxa uu siiyey gabadhiisa si ay ugu adeegto sulaymaan almansarfuuri ayaa hadalkaa taxqiijiyey nebi ibraahim calayhi الsalaam filistiin buu dib ugu noqday haweenaydii haajar ayuu guursaday waxay u dhashay nebi ismaaciil bay u dhashay calayhi الsalaam saaro ayaa ku hinaastay ilaahay baa waxa uu amray in uu haajira ama haajir labadaba waa la yidhaahdaa in uu haajir iyo inankiisa ismaaciilba inuu geeyo dhulkaa iyo maka meesha la yidhaahdo inuu dejiyo taasuu ilaahay amray nebiga maka ayuu keenay maka waa cidla waa meel saxraaya lama degaana weeyaan maka ayuu keenay maka waa cidla waa meel saxraaya lama degaana weeyaan meel yaroo tuura ayaa jirta bes wax biyo ama jiraan wax dadi ma degana wuxuu u wadaa nebi ibraahim in yaroo kiishoo timira iyo weel biyo ay ugu jiraan ayuu u wadaa ismaaciil waa yar yahay naasku jaqaa xagga cinda albayt alxaraam meesha cidlada ee weli aan waxba laga dhisin ee tuurtaa yar agtiisa ayuu nebi ibraahim soo dejiyey haweenaydiisii haajir iyo ismaaciil inankiisi nebi ibraahim amar buu ilaahay siiyey dhaqaaq baa la yidhi noqo xagga iyo filistiin ku noqo wuu dhaqaaqay haweenaydiisii baa ka daba dhaqaaqday haajir yaa ibraahim ayna tadhab xaggee tegaysaa waad nooga tegaysaa meeshan cidlada oo qofna una joogin wax la jooga male waa cidlaha amar rabbi ayuu qaadanayaa dhaqaaq baa la yidhi ka dhaqaaq wiilkaagan iyo reerka ka dhaqaaq bal suuradayso ayuha alakhu lmuslim nebi ibraahim wuxuu ahaa khaliilullah ayuu ahaa da' buu ahaa xoolo badan buu filistiin ku lahaa lo' badan dacwadii isagaa nebigii joogay oo dacwadii ayaa la amray caruur male ilaahay buu beriyey ismaaciil baa la siiyey isagoo oo da' markaasuu ilaahay wiilkan iyo haweenaydaadan haajir ba qaadoo maka tag cidlada kaga imo amar qaado xaggaasuu kaga tegay way daba orday haajir iyada oo le xaggeed nooga tegays ma ilaahay baa ku amray allaahu amaraka bihaada nacam buu yidhi haa ilaahay baa i amray idan laa yudayicunaa xasbii bay na dayici maayo ilaahay hadduu ilaahay sidaa uu ku amray uu nagu filan yahay rabbi subxaanahu wa tacaala riwaayo kale waxaa ahayd radiitu raali baan nahay taraktanaa ilaa kaafin mid nagu filan ayaad nagaga tagtay kadib iyadii dib bay u soo noqotay nebi ibraahim calayhi الsalaam isna waa sii dhaqaaqay meel yar ayay samaysatay cariish yar oy harhsato nebi ibraahimna markuu ka fogaaday waa meel saxraaya oo lama degaan ah ayuu meel yaroo taaga iskor taagay markaasuu soo eegay ilmihiisii quraad iyo haweenaydiisii cidlo u dhigay amarka rabbi isaga oo lilmaynaya ayaa waxa uu lahaa oo qacmihiisa kor u qaadaya rabbi innii askantu min duriyatii biwaadin gayra dii zarcin cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu الصalaaة fajcal af'idatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min aلhamaraati lacallahum yashkuruun ilaahayow waxaan dejiyey reer duriyadaydii iyo xaaskaygii waxaan dejiyey
meesha cidlada webiga cidlada anbiya iyo wax mura iyo wax khayra iyo dadna ayna meesha joogin ayaan beydkaaga agtiisa sidaadii amartay ilaahu waxaan xagga u dajiyay inay tukadaan oo cibaadaystaan oo khayrka badsadaan ilaahu dadka xagga u soo jeedi ilaahu mura oo dhanna ku arsaaq ayuu lahaa ummu ismaaciil waxa ay bilowday inay wiilkeygii yaraa ay naaska muujiso biyahan ay cabto timirtan yarna ay cunto biyihii wuu ka dhammaaday timirtii way ka dhammaatay way haraaday waxaana anaaskii ma keenin ismaaciil calayhi الsalaam wuu haraaday wuxuu bilaabay inuu ooyo oo lugaha dhulka la dhaco waxay karaahaysatay biyo uma helayso waa meel saxraaya xaggee biyo uga keeni dad meelahan kama dhowa waxay yaqiinsatay inuu ilmahani khalaas halaag u dhow yahay uu halaagsamayo waxay tihi intaan agtayda uu ku dhiman laha bal meelaha biyahan uga raadiyo oo han doondoono anoo maqan ha dhinto xaggaa iyo waxay u oraday buurta safa la yidhaahdo way iskortaagtay inay meelaha wax ka aragto waxba way arki weyday way soo oroday xaggaa iyo inankaygii u soo oroday xaggaa iyo marwa ayay oroday 7 goor bay sidaa usii oroday oo u soo oroday wax shanqadhe way weyday mar walbana inankayga ismaaciil baa u imanaysay way eegaysay iyadoo oo xaaladdaa ku jirta oo dhibaataysan ayay shanqadh maqashay iyo cod iyadoo oo nafteeda la hadlaysa waxay tidhi sah aamus aamus shanqadh baan maqlayaa waxay aragtayba malag riwaayo kalena malaku jibriil ayay aragtay oo u dhawaaqay man anti ayaa tahay adigu waxay tidhi haajir baan ahay ummu walad ibraahiim ayaan ahay waxa uu ku yidhi ibraahim ayuu inigaga tegey ayaa iniga mas-uula waxay tidhi ila allah ilaahay buu inaga tegey waxa uu ku yidhi idan rabbi wuu inagu filan yahay baadkiisuu ku dhuftay culimmada qaarkood yidhaahda riwaayo kalena jibriil baa lugta ku dhuftay ka yar lugtiis meeshii zamzam baa ka yimid biyaha zamzamka ah ayaa ka soo booday ummu ismaaciil way yaabtay biyo soo boodaya waa meel saxraaya dhagax adag maa meesha jira waxay bilowday inay sii qodo oy biyaha qabsato oy dhaansato weelkaygii yaraad ay haysatay iyada oo ka cabsanaysa inay biyahani ay ka noqdaan oo cabbaysa ibn cabbaas waxa uu yidhi nebigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam yarxamu allahu umma ismaaciil allaha u naxariista buu nebigu yidhi hooyadii nebi ismaaciil low tarakat zamzam riwaayo kale low lam tagrif min almaa biyaha haddayna ayna darsan kaanat zamzam caynan maciina biyaha zamsamku waxay noqon lahaayeen webi socda ayay noqon lahaayeen il durdurayso oo socota ayay noqon lahaayeen ayuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam way ka cabtay wiilkeygii yaraana naaska ayay muujisay canaa ka yimid waxa uu malagii ku yidhi laa takhaafi dayca inaad dayacantid ha ka cabsanin xaggana waxay noqon doontaa meeshan aad joogtid baytullah beytkii ilaahay buu noqon doonaa waxaan dhisi doonaa wiilkan yar iyo aabihii ayaan dhisi doonaa markaasaa waxa ay ku tiri basharaka allaahu bikhayr allaha khayra kuu bishaareeyey aad bay raalli u noqotay oo u faraxday ilaahay baan ku mahadis iyaga oo xaaladdaa ku jira oo biyihii ay heleen ayaa waxaa yimid meeshii 2 wiil oo awr ka lumay raadinaya oo camaaliiq ayaa la yidhaahdaa
awl ka lumay ayay raadinayeen way haraadeen waxay arkeen meeshaas fog oo shimbiro ay ku wareegayaan ayay arkeen way isweydiiyeen meeshan cidlada ah shimbiro waxay ku wareegaan meel ay biyo jiraan maxaa inooga dambeeyey iyakuna waxay degan yihiin xaramka agtiisay degan yihiin meel u dhow carafa ayay degan yihiin way soo ordeen meeshii bay yimaadeen waxay arkeen biyihii meesha jiray waxay arkeen waxay soo kor taageen bay culimmadu leeyihiin buurtan abi qubays la yidhaahdo markaase waxay arkeen biyihii iyo ismaaciil iyo hooyadii markaasay u yimaadeen waxay ku yidhaahdeen xillimaad meesha soo degteen oo biyahan ayaa iska leh waxay ku tiri biyahan aniga iyo wiilkaygaa leh ilaahay baa siiyey waxa ay ku yidhaahdeen labadii ayaa inii qoday waxa ay ku tiri suqyan min allah waa waraabin ilaahay una siiyey waxay garteen inay xaq tahay wax qodi kara meeshan ma jiro biyahan waraabin kara ma jiro oon ilaahay ahayn way noqdeen qoomkoogii bay dib ugu noqdeen iyagoo u bishaaraynaya oo u sheegaya nebi ibraahim calayhi الsalaam mar walba waa u iman jiray bishiiba mar buu u iman jiray wiilkii ismaaciil waa koray calayhi الsalaam 13 jir ayuu gaadhay mar kalaa la imtixaanayaa nebi ibraahim calayhi الsalaam imtixaankii hore uu ku guulaystay cidladuu dhigay waa sii weynaaday nebigii inankiisii yaraa buu u yimid oo 13 jira aad buu ugu farxay amar rabbi ayaa u yimid maxaa la yidhi inankaagan aad arkaysid ee kuu shaqaynaya ee ku agboodboodaya aad ku faraxsan tahay qaal oo qal baa la yidhi ayaa qalaya waa nebi ibraahim middi baad u qaadanays qof kale ma qalaya adaa qalayaa la yidhi qacantaadaad ku qalays waa inankii quraatu lahaa waa cidla waa da waa bannaan iimaanka nebi ibraahim u fiirsa calayhi الsalaam iimaanka nebi ibraahim u fiirsa calayhi الsalaam inankiisii buu weydiiyey uu u sheegay weydiin ma jirto meesha lama tashanayo aabba waxaa la i amray inaan ku qalo ee niyadda hagaaji ee u diyaar garow ibn cabbaas waxa uu leeyahay riyat اlambiyaa waxay ambiyadu ay arkaan ee hurdada ay ku arkaan waa xaq waa waxyi inankiisii buu la hadlay fandur maada tara qaala yaa bunaya ilahay waxa u leey falamaa balaga macahu saci markuu gaadhay wakti 13 jir bay mufasiriintu yidhaahdaan inankii oo ordaya oo qurux badan oo u arkay ku farxay qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuk waxaa la i tusay oo la i amray inaan ku qalo inankaygiiyo fandur maada tara diyaar garow maxaad u malayn hadal kale ma jiro siduu amarka u qaadanayo daawo ilaah waa walad uu ku rabeeyey cala اddiini waالطaaca qaala yaa abati ifcal maa tu'mar waxaa lagu amray amarkaas fuli aabbo satajidunii in shaaء allahu min الصaabiriin hadduu ilaahay yidhaahdo waan ku sabri waan adkaysan oo waan ku sabri ibn cabbaas waxa uu leeyahay markuu nebigii uu doonay inuu inankiisa u qalo oo mididii u qaatay uu xidhxidhay uu dhinaca midig u dhigay ayaa waxa uu yidhi aabbo xadhiga igu adkee inaan dhaqdhaqaaqoon adkaysan waayaa laga yaabaaye xadhiga igu adkee aabbo maradana iska hagaaji ayuu dhiigga kugu daadanin hooyadii hadday aragto dhiigga way murugoon aabbo ee maradana ka hagaajiso ma igu adkay xadhiga
امتحان كدن بيموجرا مديدي بقات فلما أسلم أمك يا ربي لبدو ذبا إسماعيل نوى اسكت ديبي إبراهيم نوى فلينية مديدي مركي أوقات وتله للجبين ودنع مدك ودقي لما قال كنا واحد دنع وجهه ودقي ودول قبت مديدي خلاص امتحانك وكسب حياة وكسب حياة وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا خلاص وتقول ليس تالي نبي إبراهيم امتحانك واتكسب بحذي إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وامتحان أضب إلهي إليه نبي إبراهيم وكقول ليست امتحان كاسو كسب بحي نبي إبراهيم عليه السلام وحو أركي نبي إبراهيم dadkii camaaliqdii oo meeshii aad ugu soo batay markii biyihii iyo arkeen meeshii bay soo degeen waxaa yimid qabiila caraba oo jurhum la yidhaahdo oo yeman bay ka yimaadeen iyakuna nebi ismaaciil calayhi assalaam aad buu u koray ibraahim dib buu u noqday xagga iyo filistiin qabiilkaasuu la koray nebigii adhiguu la eegayey af carabiguu ka bartay gabadh bay u guuriyeen hooyadii haajarna way dhimatay nebi ibraahim calayhi assalaam mar walba waa soo mari jiray siduu uga warhayo ilmihiis waxa uu arkay nebigii oo maqan ismaaciil oo maqan ayuu gurigii yimid haweenaydiibuu weydiiyey ku yidhi aaway ismaaciil waxay ku tiri uu maqan yahay maciishadiina ka warran buu ku yidhi saad u nooshihiin wallaahi nolol cidhiidhiyaan ku noolnahay bay tiriyo nolol raashin fiican ma helno oo way dacwiday nebi ibraahim baa ka yaabay sabir darideeda say tahay waa guri waxa ay soo gashay ambiyaa inay carruur dhasho tani u dhasho nebi ismaaciil raalli kama noqon waxa uu ku yidhi marka uu yimaado ismaaciil salaan iga gaarsiiye waxaad tidhaahdaa catabada albaabka iska beddel markuu yimid ay arrintii u sheegtay uu fahmay inuu aabbihii ahaa oo u jeeda haweenayda iska fur wuu iska furay haweenay kale ayuu guursaday waa yimid mar labaad haweenay fiican bay ahayd isagoo oo maqan ayuu yimid mar labaadkii uu weydiiyey maciishadiina ka warran waxay tihi wallahi khayr baan ku sugannaho nimcad ilaahay oo tii labaad si wanaagsan bay u sheegtay iyo khayrka waxa uu ku yidhi ismaaciil markuu yimaado waxaad tidhaahdaa catabat albeyt ilaali way kala raageen muddo kadib ayuu yimid inankiisii oo laabganaya oo baranaya ayuu u yimid wuu la joogay ilaahay baa waxa uu amray inay dhisaan gurigii kacbadii in la dhiso nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ayaa dhisaya kadibna ilaahay wuxuu amray nebi ibraahim inuu dadka u dhawaaqo inuu qayliyo yidhaahdo dadow ilaahay wuxuu ini amray inaad xaggan u soo xajidaan ee soo xajiya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku arsaaqay ismaaciil haweenaydii dambe u guursaday 12 wiil ayay u dhashay 12 kaasi kolba dabcan kolba marba wiil baa dhalanayay 12 qabiil ayaa ka tafiirmay way faafeen markii waxay u kala dhoofayeen yaman iyo shaam iyo masar meelahaasoo dhan bay ku kala baaheen qabaa'ilkaas iyo awlaaddaas waxaa ku sugnaa maka laba awlaaddaas laba umaa ku sugnaa naabit iyo qaydaar oo ina ismaaciil ahaa maka ayuu iska deganaa xaggaasuu ku tafiirmay awlaaddiisii waxaa ka mid ahaa cadnaan waa awowga 21aad
nebiga aftirsimadiisa markaa nasabkiisa awowga 21aad ayuu imanayaa. nebigeenu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam in allaha اصطafىa min waladi ibraahim ismaaciil. ilaahay waxa uu ka doortay awlaaddii nebi ibraahim ismaaciil iyuu ka doortay. waاصطafىa min waladi ismaaciil awlaaddii ismaaciilna waxaa laga sii doortay kinaana buu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam. waاصطafىa min kinaanana wuxuu ilaahay ka sii doortay quraysh. waاصطafىa min qurayshna wuxuu ilaahay ka sii doortay bani haashim. waاصطafaanii min bani haashim, ilaahay wuxuu iga sii doortay anigana reer bani haashim baa ka dhashay. xadiiskan imaam muslim ayaa soo wariyey. riwaayo kale waxaa ahayd in allaha khalaqa alkhalq, ilaahay khalqiguu abuuray. waxa uu ilaahay iga dhigay firqadaha khalqiga ay ka kooban yihiin jamaacaadka, firqadda ugu fadliga badan ee ugu khayrka badan ayuu ilaahay iga dhex doortay. uma takhayara alqabaa'il, kadibna ilaahay qabaa'ilkaas ayuu ilaahay iga sii dhex doortay. fajacalanii min khayri qabiila, qabiilada tii ugu fiicnayd ayaa laiga dhex doortay. uma takhayara albuyuut, kadibna ilaahay guryihii ayuu sii dhex doortay. fajacalanii min khayri buyuutihim, guryahooga guriga ugu fiican ayaa la iga soo dhex doortay buu nebigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam. faأnaa khayruhum nafsan wa khayruhum beyta, aniga uguna fiican buu nebigu yidhi, uguna guri fiican buu yihi nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam. wakaa muxamadu rasuulu اllah, rasuulkii ilaahay wakaa muxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmuطalib ibni haashim ibni cabdimanaaf ibni qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacb ibnu lu'ay ibni haalib ibni fihr ibni malik ibni nadr ibnu kinaana ibnu khusayma ibnu mudrika ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nizaar ibnu macad ibnu cadnaan salى اllahu عalayhi wasalam. cadnaana biitifaaqi اlculamaa waa min waladi ismaaciil, awlaaddii nebi ismaaciil weeyaan calayhi الsalaaةu wasalaam. nuurkaa muxamed calayhi الsalaaةu wasalaam ayuu ilaahay inoo doortay oo rasuul inooga dhigay calayhi الsalaaةu wasalaam. nuurkaas ayaa la yidhi isagaa mucallin inii ah, wax ini baraya, ku dayda. maxaan ka naqaanaa nebigeen haddaba calayhi الsalaaةu wasalaam? nasabkiisa ayaa garan, awooyaashii ayaa garan, adeeradii ayaa garan, edooyinkii ayaa yaqaana. ma naqaano ayuha alikhwa, jaahiliin baan ka nahay. nasabka nebigeenna maxameda waxaan ka garanayna male. haweeney baa waxa ay tidhi, qisas baa jira dumarku ay maarata, hadda nebigu iyo ilaahay maxay isku ahaayeen? yani wax alla waxay ka garanaysa male. nebiga iyo ilaahay maxay isku ahaayeen? waa xagga aan ka taagannahay diinkeenna. maxaan maanta ula yaabaynaa marka aan maqalno nin gaala oo nebi moxamed caayaya? waxaan ka garanayna male nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam. innaka oo muslimiina waxaan ka garanayna male. bal maanta shabaabkeena way caayaan nebiga. nebigaaga waxaa ku samee, saasay yidhaahdaan si yaro fudud, nebigaaga waxaa ku samee. markaad tirahda maxaa nebiga waa caayay? waan ku jabsanayey buu ku leeyahay, waan ku jabsanayey. ayuha alikhwa, duruustan waxay noqon doontaa duruus aan isku imtixaanno. inagu badini maayo, jumcaha dambe ayaan xaggaa ka qaadi doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo. wabiاllahi towfiiq, وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم. الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم ما أمسى